madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay munaasabadda 12 Oktoobar oo ku beegan markii la aasaasay calanka Soomaaliya sanadii 1954. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa munaasabadaasi maalinta calanka 12 Oktoobar waxa uu alla uga bariyay naxariistiisa in uu siiyo dhammaan bahliyadii naftooda u horay jiritaanka iyo dowladnimada wadajirka shacabka Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay naf iyo maalba u horeen sidii ay u gaari lahaayeen himiladooda qarannimo safka horena ay uga gali lahaayeen shucuubta iyo dalalka xorta ah ee leh calan iyo carro gobonimo oo dadkoodu ay ku nool yihiin. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u midoobaan xoojinta dowladnimada iyagoo meel uga soo wada jeesanaya xarakada Al-Shabaab sida uu sheegay isagoo shacabka Soomaaliyeedna ku booriyay in ay ka hortagaan burburinta dalkooda. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intaasi waxa uu ku daray in shacabka Soomaaliyeed uu ugu baaqay in ay isgacan qabtaan isla markaasina ay weyneeyaan munaasabadaha waaweyn ee taariikhda leh ee qarannimada Soomaaliya ku suntan.